والله قوان أنا قاري له ها عداد إسكال مجرين أنا أمبا إسكا قرشيت وما ركت أنا كتوه ود عندك كأمي سنة هاي ميل إن أنا كداهن ويكون دقيه هدو meel fiican ay ahayd maasha Allah ma arkin oo aan wax badan ka soo faa'iiday ma aragtay dad badan oo qiimo leh aan ku soo bartay laakiin aniga baa iska go'aansaday inaan ka tago sababtoo waxa jirto ma aragtay meel marka aad si joogto u joogto mushaarki ma taqaanaa yaad ku qancaysaa marka ku qancid waxa dhacaysa meel walba ma yani meel walba waad ka shaqaysaa silsilad waay marka dahab ah labada gacmood ee saankaaga xirantahay mar walba waxa isleedahay marka silsiladan dahabka ama furaa هذا نوع عبصوني ما هي مفرعي دافع يقول حرناته مركز دمو ميل أجوكت أتكو قناعدو دمو ما عرفتي عاد مايا عاد هملوين كاي واحد تكو أميني سيدان أيسان سورة قليني مركز قار ما عرفتي وإس كفي عنتا إنا ديرانانتا إيو إنه متقنا يعني هدي هلي سيد واحد مركز بدله أو أسلاد هاي وحباك كورسان كرتا إنها تبدلتي مركز أنا إسكي وقتي su-aasha kala rabo katigitaanka kadib media kalkumaadan biirin warbaahinta oo marka laga tago platformka ku gaarka ama bartaada ku gaarka ah isla systemka hore iyo asturnaantii iyo marka laga soo tago social media imaat oo ma intaas dhaxday bal inta warbaahin aan ku jiri kara indanka bacdi waa kama soo muuqana dad kale oo kulamada ah oo BBC iska la shaqeysan qaar siyaasadeed ku biireen qaar ganacsi ama kale galeen social media imaanshaha maxaa kugu soo riixayo bal inaad bartaasi samaysid social media horta mas'uudow ma garanaysaa waxyaabaha igu soo riix waxa kamid ah waa fursad jirto oo aan la inkiri karin soo maaha indhaha aan la iska tiri karin fursad waaye ma taqaana aad iyo aad u weyn adduunkina waxaan u arkay in uu yahay meel loo sii socdo oo ma taqaana traditional media oo iska sii lumaayo iska baabaayo digital loo guuraayo iyo mid aan isri waa mid yani aad ku soo bandhigi kartid waxa kugu jiro yani xurriyad aad u haysatid saacad lagu xisaafinaynin sheekada aragtay soo deyn karta magaciisa soo deyn sababtoo ay meel walba aad tagto policygeeda iyo shuruucdeeda lagu shaqeynaa ka adiga aad leedahayna kulli sharci un baa u dejisa anigoo kale keeygo kale isla shaqadii ha aniga keeygo kale siyaasadda iyo waxaas ma galo arrimaha bulshada iska gala marka waa waxaan iskaga dejistay marka waxaan is irimida kale halumin because dadka intay ugu barteen saacadi sheegtayba media-hana la ugu bartay sax yaa aqoon lahaa qofna ma aqoon leh marka waxaan is dhahay halumin meeshaan gal iyo tan kale iyadana ah ma taqaana maxaa dadka uga faa'iideyn kartaa maxaa dadka aad uga faa'iideyn kartaa maanta hadda u gudbisay bulshadan haba yaraata haday rabta yaa cirbad ba hal ay kaata aad isbedel ku sameyn kartaa marka saas daraadeed ma aragtay ugu soo biiray social media barnaamijyada dabcan saa sheegtay aad soo gudbisid waa barnaamijyo aad u qiimo badan oo weliba wacyi bulsho ay u badan yihiin si gaar ahna la dhihi karo يعني حاجة على كعبسك dadku inay badiyaan oo dadka ka soo muuqdo wadaadii u badayeen ama daaciin yani qaabka adiga go'aan ku gaaray ina siyaasad iyo waxyaabo noocaas ay aramo kale looga hadleen mise talooyin badan oo lagu siyaad ku go'aan qaadat may aniga baa go'aan ka gaaray sababtoo ah ma garanaysaa horta tan wadaadada gabdhaha iska badan waa aragtay waxaan is dhahay gabdhaha ma taqaana meel waxay u baahan yihiin gabdhaha kale ee ayaga hadalkooda ay ku soo gudbisan karaan sababtoo gabadha waxa dhici karto sheeqan ma taqaana inaysan wax kala xishoonayso oo nin uu yahay mugtay laakiin gabadhi waa ku dhiiranay marka saas daraadeed waxaan is dhahay gabdhaha aan la aqoonin laakiin wadaadada ah oo cilmiga diintan aad iyo aad u bartay kusoo keen meeshan gabdhihina ka faa'iideystaan dadka dhan ka faa'iideysta laakiin arrimo bulsho badan oo kalena waan sameeyaa marka qaarna rag laftirkooda way yimaadaan laakiin meel la dhahayo ma aha ragga ma imaan karaan ma aha waa u furan yahay laakiin ma taqaanaa dumarka in lagu soo arkin oo magaciisiya ha saas daraadeedan aan u sameeyay marka waa waxaan aan iskala imay shaqooyinka qabtid aad u qiimo badan yihiin welina markii la fiiriyo wadaadada amirahda dadka daaciinta ama culimada ah ee dadka kale social media ayagana dhinac kale xumaanta wixii ka wad wali waa darajo ahaan marka la fiiriyo dadka xumaanta aad u badan media waad ku soo jirtay khibradna waad u lahayd haddana social media waad joogtaa bal aqoontaad marka fiirisid
maxaa is leedahay dadkaas weli ay yacni xumaantii lasii dhiirigelinayo lagu dhiiranayo waa dhex joogta adaa u isticmaasha maxaa is leedahay wallaahi hadda mascuudu horta ma garanaysaa meeshaas ma aragtay maxaa la wiil social media ku jira waxaan ka maqlaa mararka qaar isagoo dhahay meeshan waa maqaayadeydii yarta ahayd horta waa iska maqaayad yar oo qof walba iska leeyahay wuxuu rabaa maqaayada cuntada rabta ku karinaya ma hadaa iskala saartidaa yeelay marka waxay ila tahay qof walba cuntadu kariya ay ku xiran tahay ma garanaysaa laakiin bil xaqiiqa waxaa wax walba wanaaga meeshaas dhigtana wanaagaas adigu kuu soo laabana wax walba xun hadaa banaankaas aad dhigtana waxa xunna waa kuu soo laabanayaan marka waxaa waaye mid mataqaanaa hadda iyo hadda kadib marka aad dhimatana aad mataqaanaa ugu horeysaba marka saan qabriga lagaaga soo kala tago lagugu xisaabtamayo marka wax kale aan dhahaya malaha ama xumaato soo bandhigta ama wanaag soo bandhigta kulley waa wax meel kuu yaal xisaab ahaan waa xisaabtaadii oo xisaab kusii darsanaysid yaa bangigaagi oo aad wax sii gelinaysid waa lacag aad sii gelinaysid ama ha kuu noqoto lacag oo ku anfacayso ama ha kuu noqoto lacag mataqaanaa ku dhibaataynayso marka waxaan is leeyahay qof walba waa meesha uu ku soo bandhigo laakiin almuhiim waxaa ah maadaama anaga nahay dad oo islaan ah in aan laga tegin islaamnimada يعني waxyaabaha qaar oo mataqaana la dhihi karo yani wax walbaba waxan yani Soomaalida waa aragtay diin marka laga hadlayo waa dad ma arkino islaamnimada marka lagu soo xadgudbay iyo ma aragtay aad iyo aad u magaciisina ha laakiin haddana hoos in la isku sii fiiriyo oo wixii in la isxakameeyo oo yani wax walba marka talaabo qaadaysan diintaada ku dabaqo waxa dhahdaayo like waxna daan qaado maxaa ka imaan karo yani aysan noqonin wax walba aysan ka noqonin waa noolahay kaliya maanta biyo cabooyaa hawo fiican qaadanaya magana waxaan rabaan sameynaa maaha qofka hawada ku siiya ka dambeeyo qofka biyaha isku suuragelina cabtida ka dambeeyo wax walba Allah subhanahu wa ta'ala ka dambeeyo wax walba oo sameynaysa daa talaabadaada afiirin weys waa lagaaga daba imaana taas bil xaqiiqo waaye marka waxaan dhihi lahaa macna badan ma soo kordhinayso ma aragtay qabiil iyo dad la ma arkino magaciisi iyo yani wax anshaha iyo wax badan ma soo kordhinayso maalmaha waa iska tirsan yihiin waxa la afkii hadla waa hadle aamusnaan ka dambeeyay mooho maxaa ka dambeeyay hadana qabri la ka dambeeyay mooho ciid lim lagu soo shubayo maxaa tahay marka waxa ma batiid Soomaa inta yarta ah haysatida markay waxa iska fiican inaad ka faa'iideysta dadka hadana aad kugu dhib badan waa isla dumarka saa sheegtayna maxaa la yiraahdaa doorka ugu badan hadda platformka aasaysan dumar u badan qaar laga yaabaa waxyaabihii quruxda badnaayay oo nolosha gaarka ah labada qof lamaanaha intay live soo galaan ayagii yani waxyaabo laga xishoon jiray iscaayaan qaar xataa public waxay keenaan naago isqabaan inay dhahan waxdan kala tageena mise asaga kool la soo geliyo dhaqankaas oo dhan marka intuu ku biishubana wallahi dhaqankaas dhaqan fiican ma aha marka أنا waxay ila tahay qoys marka loo qoys waa wax mataqaana qarsoon waa wax mataqaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay inaysan noqon wax public la soo dhigo that's why la dhahayba qoys loo dhahayba dad meel degan oo sharaf leh oo cizo leh qoys waa wax ixtiraam mudan waa wax wanaagsan marka waxaan dhihi lahaa sidaas loo sameeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay ma fiicna in laga bedelo sida uu yahay in loo hagaajiyo yaa ila wanaagsan Carabi ilka isku dhow nininaag waa isqabsanayaan oo isqabo laakiin at the end of the day wax uma maleynay labadiina arinta idin taala aad xalin weydaan banaan hadaa keentiin in dad banaanka idin xalnismayso oo idin xalinayaan haddana hadii dhariga ma arkin oo laga badiyo ma arkin oo hadaa dhinacan adiga qaadada ka soo gashtaan dhinacan qaadada waa halaaba ha marka English ma waxay tiraahdaa nacamti hadii cuntada spices ka laga badiyo nacamti waxyaabahan xawaajiga toonta yani xadkeeda aad dhaafsiiso dhadhan ma yeelanayso marka waa iska wanaagsan qofkan waaba is guursateen be awal horan jacayl isku guursateen qaarkood u wadaaba isku dhalee ma jirto wax banaankaas oo soo istaagtid oo aad qeylqeylisid waxa iska wanaagsan in mataqaana labadiinaba wixii xal ah oo heshaan hadii rabtiina wada jooga hadaa rabtiina kala taga laakiin wixii han noqdaan wax labadiina idinku kooban hadaa xalin weydaan dadka idin dhow oo ehel iyo qaraabo idinku ugu sokeeyo oo wax garadka oo qiimaha leh oo ehlu diinka ah culimada ma arkino akhyaarta ah waaya araga la qaybsada hadaaba xalin weydaan waay hadaa xalin kartiina labadiina waxa sameyn weydaan uma maleynay dad kale inay idin sameyn karaan marka waxaan dhihi lahaa waxa iska wanaagsan inta la dhowri karo
in la dhowro. haddii ugu dambeyntii lagu dhihi lahaa Suheyba fariinta kugu dambeysa dadka social media isticmaalaya oo weliba kuwa yacni caaqirada inay hilmaamaan iska dhigeen oo adduun le in la jooga aaminsan fariin u reeb haddii lagu dhihi lahaa maxaa u reeb lada gebagabadii fariinta u reebaya keliya waxaa waaye inaad fiiriso hooyada aaw aabaha aaw kuwa jecleedan aaw intee aadeen ma kula joogaan awowga aawe ayeedii macaaneed aad jecleed aawe qaarkeen xitaa ay soo korisay ay dhici karto aabaheen macaan aawe ma nool yihiin qaar iskuul isla soo dhigateen iskuulka inta isla dhigateen aan heblaayo daris aheedeen aawe hebel oo mataqaanaa daris aheedeen yacni waxaan dhihi karaa badanaa mararka qaar waxyaabaha oo la yaabka waxaa arkaysaa qofaa afkiisa wuxuu kasoo bixinaa wax xun qofoo kale u haystaa qof bini aadan kale u haystaa uu caynaa ama ku dhegan yahay ama wax uu ka sheegaa ama uu magaciisiina yacni isla daqiiqadaas adiga daqiiqada ku xigta inaa isweydiisa ma noolaane adoo afkaaga waxaad kasoo baxay haddaa ku dhimata ka waran soo haddana mascuudo lama oran qof walba ficilka uu ku jiro unbaa lagu soo bixin sooma maanta adigoo sujuudsan haddaa dhimatid maya waa lagu soo bixinaa soomaa camalkaas nacamta camalka aad samaynaysa aa la isku soo bixinaa maho ma oho marka wixii aa ku jirto unbaa lagugu soo bixinaa haddaa dad ceynaysa saas haddaa dad magaciisanaysa saas yacni aakhiro maaragtay adduun yacni annagoo dhan adduunka maxaa nooloo keenay in aan mataqaanaa ilaahay subxaana watacaala maanta haddaa cibaadaysatid mascuud iyo haddaadan cibaadaysan adiga wax ma u kordhinaya ilaahay wax ma u kordhinaya wax ma kaaga baahan yahay waxba kaagama baahna laakiin adiga wax raadsanaysid ma aho adaa wax u baahan adaa ilaahay u baahan imtixaan waaye ha marka ka waran adigii wax u baahnayd haddana haddii aad sii gasho wax dhib oo aakhiradaada aad ku sii magaciisaysid marka waxaan dhihi lahaa wax kale oo nacamta la dhahan ma jirto xusuuso waxaa xusuusataa un dadkaaga dhan aawe aabaha hadduu nooleyn aawe intuu aaday xaalkuu ku sugan yahay mataqaanaa may adna meeshaas ma aadaysido haa qabriga ma lagugu ridaayo haa ma lagaa soo tegaayo haa maxaa kuu dambeehe xisaabtan yacni intaan lagu xisaabanin adi isxisaab meesha in iska maxaan ku jiraa dheh maxaan samaynayaa dheh midda kale dee mataqaanaa way furan tahay in ilaahay subxaana watacaala uu qofka ma arkin oo afiska waa furan tahay mar walbo ilaahay mar walba wuxuu ku dhahay toobadkeen la imoo un adiga laakiin adduunka waxaa u daran in wixii aad ka toobad keento ku laabataa haddana ku laabataa ama inaadanba usoo jeedinba waxaad samaynaysa aad u aragto in mataqaanaa u aragto inay caadi ay tahay oo sii wada halaag markaas unbuu kuu sugnaaday marka waxaan dhihi lahaa adduunkan waa laga tegayaa qiimo ma lehe wanaaga un koley maba wanaagsanaan karna 100% laakiin at least bal wax yar xitaa bal inaan isku dayno inaan maaragtay aan samayn karno aakhiradii maarkin oo la hagaagsan karo saas baan dhihi lahaa aad iyo aad u mahadsan tahay Suheyba Maxamed Siraad Suheyba Badqas oo runtii sharaf noo ahayd in waraysigan kooban aanu kula yeelano xarunteena magaalada Muqdisho aad iyo aad u mahadsantahay mas'uuliyadana guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaa inta barnaamijkan la mid ah daawada aan ku kulmi doono salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaaga ii sheeg kambaniga qarnigan iyo qarniyada soo socdaba ugu haysta hirgelinta dhismaha laakiin magacaaga weli imaadan sheegin dhismayaasha aan hirgelino waa kuwa ugu raaxada iyo tayada sarreeya Nairobi sida gurigan kuu muuqda oo kale wah maxaa ku daaray magacaaga ii sheegno Rabat Properties waana hirgeliyaha dhismahan kuu muuqda wuxuuna gurigan ku yaalaa Second Parkland dabaqu waxa uu ka kooban yahay 4 qol iyo fadhi oo ah 230 square meter 2 qol iyo fadhi oo ah 120 square meter iyo 3 qol iyo fadhi oo ah 190 square meter gurigan waxa kale uu leeyahay gym swimming pool goob carruurta ay ku ciyaaraan madarso iyo masaajid iyo weliba ceel biyood ha ka reebin waxa uu leeyahay wish iskuul u fiican carruurta iyo cisbitaalka ugu wanaagsan 30% ayaadna hormarinaysaa muddo 2 sano ah ayaadna lacagta ku wada dhamaynaysaa wixii faahfaahinta dheer kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda Rabat Properties kambaniga ugu wanaagsan kambaniyada dhismaha Nairobi